ayo wariyeena Bashiir Cabbaas رئيسul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa daafuray mashruuca weyn ee jidka halbowlaha ee isku xidha labada dal ee Itoobiya iyo Kenya waxaana si wada jir ah xadhigga uga jaray ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed iyo Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkaas Kenya haddaba munaasabadan xadhigga jarkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Daawo kuwa degmada Mooyaale iyo qaybaha kala duwan ee shacabka rayidka ee ku dhaqan degmada Mooyaale ee gobolka Daawo xadhigga jar kadib waxa halkaas warbaahinta kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Today, the inauguration of the Moyale one-stop border post is a clear demonstration of commitment for enhanced trade facilitation on the part of both Ethiopia and Kenya. xadhigga jarka wadadan Mooyaale ee isku xidha labada dal ee Itoobiya iyo Kenya waxay ka maqraati kacaysaa dadaal ballaaran oo kogonaasho ku dheehan tahay oo labada dhinacba ah jidkan isku xidha labada dal waxa uu dhimi doonaa waqtigii iyo kharashkii ku bixi jiray isu socodka labada dal ee xuduudaha la iskaga gudbo samaynta hadaf mid oo lagu dhisayo xarumo adeeg bixin oo labada dalba wadaagaan sida dakhliga kastamyada laamaha socdaalka amniga ganacsiga wax soo saarka beeraha iyo waliba adeegyo kale oo farabadani waxay tusaale cad u tahay awoodda aan u leenahay samaynta iskaashi iyo isdhexgal dhaqaale dadaaladayadii aan kala go'al lahayn ee aan ku doonaynay inaan meesha kaga saarno kala qaybsanaanta oo ahayd waxyaabaha dib u dhigayo kobaca dhaqaale waxay ka muuqataa taariikhdii hore ee gobolka dhamaystirka wadada Mooyaale awaaso oo dhan 500 kiiloomitir waxay sidoo kale halbowla u tahay kaabayaasha dhaqan dhaqaale ee kor u qaadaya iskaashiga dhaqaale ee gobolka iyo isdhexgalka wadadani ma sahlayso oo kaliya isu socodka laakiin sidoo kale waxay xoojinaysaa maalgashiga oo ay wajiyo badan u horumarinayso gaar ahaan waaxda dalxiiska to be together with you again as we continue to strengthen the partnership between our two countries. waxaan aad ugu faraxsanahay la kulankiina mar labaad ee aan ku sii xoojinayno iskaashiga labada wadan ee Kenya iyo Itoobiya waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada walaalayaal Kenya labada wadanba waa dhulkiina shacabkuna waa walaalo wax farqiina ma jiro muhiimadeenu waa inaan xaqiijinaa iskaashiga iyo in ay dadkeenu wada shaqeeyaan xadhigga jarka wadadanina waa dhacdo kale oo taariikhi ah oo sii adkeynaysa xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labadeena qaran sanooyin badan waxaan wadaagnaa hal hami kaasi oo ah inaan samayno ganacsi iyo nidaam maalgashi oo wanaagsan xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya labada wadan waxaan aaminsanahay in aan si aad uga wanaagsan sidii hore aan ugu horumarino xiriirkeena wadan waxaan xaqiijinayaa in hirgelinta mashaariic waaweyn oo aan iska kaashano gaar ahaan kaabayaasha dhaqan dhaqaale maalgashiga iyo ganacsiga xorta ahi uu sii xoojinayo xiriirkeena wanaagsan ee muddada dheer inaga dhaxeeyay waxaan si buuxda ugu kalsoonahay in xiriirka labada dal ee Kenya iyo Itoobiya uu sii xoogaysan doono sanadaha soo socda marka wadadani waa mid ka mid ah dadaalada xoogan ee taariikhiga ah ee aan ka samaynay isku xidhka labada dal waana mid ku tusaysa kogonaanshaha shacabka labada dhinac runtii waa kaaba dhaqaale oo aad muhiim u ah kaasi oo sahlaya maalgashi ballaaran oo labada dal dhexmara ugu dambeyntiina jidkan Mooyaale wuxuu sahlayaa isku xidhka labada shacab wada noolaanshaha iyo ugu dambeyntii midnimadeena isku soo wada duubo jidkan ayaa qayb ka ah dhismayaasha wadooyinka sida casriga ah loo dhisay ee Mombasa iyo Addis Ababa isla markaasina door muhiim ah ka ciyaari doona isku xirka labada dal iyo deegaanada uu maro jidkani jidkan ayaa waxa lagu dhisay 6.3 bilyan oo bir waxaana maalgeliyay bankiga horumarinta Afrika isku soo wada duubo dawladaha Kenya iyo Itoobiya ayaa waxa la filayaa inay sii xoojiyaan xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya labada dal ee Itoobiya iyo Kenya Bashiir Cabbaas Ali warbaahinta deegaanka Soomaalida SR TV xarunta degmada Mooyaale ee gobolka Daawa
shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan magaalada Mooyaale ayaa soo dhaweeyay rugta baadhitaanka iyo wadadani xadhiga laga jaray. wadadani kulley waa la dhameystiray marka maanta waxa loo taagan yahay xarig jarkeedin baa marka xafladan loo qabtay marka guud ahaan wadadana waa wada aad u ballaaran ama aad u dheer weeyaan kulley faa'iidooyin badanna way keeni doontaa hadii Ilaahay yiraahdo ka deegaan ahaan faa'iido badan baan ku leenahay ganacsi ballaaran baa halkan ka furmayo waxay noqon kartaa meeshu kulley maadaama xaday tahay dakada qalalan bay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo oo wixii adsaba laga soo qaaday si toos ah halka kontaneerada inta la dhigo halkan lagu rogi doono wixii Bambaasa laga keenana si toos ah halkan kontaneerada lagu kala wareegi doono yay noqonaysaa marka bulshada Soomaalidana kulley deegaanka Soomaaliduna waa bulsho ballaaran kulley gobolka Daawa ayaa deegan marka xagga ganacsigana kulley bulshadu kulley dhaqdhaqaaqoodii aad buu u fiican yahay kula weynahan waxa weeye waa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya mudane Uhuru Kenyatta soo dhaweyntoodu weeye jeedooyinkuna wuxuu ku saabsanaa in xarig jar loo sameeyo kastamka ama jibriga labada wadan kala qaybiya oo muddo dhowr sano ah la dhisay balse iridday xirnayd marka waxa rajeenaya kastamka marka la furo kadib in dhinaca ganacsiga iyo socodka labada bulsho ee labada wadan ku kala dhaqan inay ka faa'iideysan doonaan ayaanu rajeenaya munaasabadan waxa mudnaan kooda ayay noo leedahay annaga deegaankeena Soomaalida inkastoo uu dhaqaaqeena bacshirada uu aad u fiican yahay dawladeena sharaftana waxaan ka codsanaynaa ka deegaan ahaan jibriga degmada Mooyaale waxaan ka codsanaynaa in waxaan ku leenahay saamagan ku leenahay waa in maaragtay xooga la saaraa waxaan ku leenahay saamagan ku leenahay waa in maaragtay xooga la saaraa annagana insha Allah waan ka faa'iideysan doonaa maareeyaha wakaaladda warbaahinta ee dawladda deegaanka Soomaalida